Coronavirus. 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 What happens? I will call No, Carrier no, no. to prison. I guess I have to do it myself. I know it's not. Coronavirus. waa maxay caabuqa corona corona waa caabuq dilaa ah adduunkana saameeyay bulshada u baahan in laga waacigeliyo qaas ahaan muslim gaalaba caabuqa corona adiga ahaan ma ka cabsatay corona waa dilaa seen uga baqeen waxaan uga baqayaa bulshada dhammaanba ilaahay haasa ma tabixiyo taadka su'aasha kale aan ku weydiinay waxay tahay caabuqa corona muxuu dalka Yurubta ugu badan yahay oo wadanka Afrikaanta ugu yar yahay uu saameynta waxa keenay bulshada wuxuu ugu badan yahay mar walba bulshada oo badana isku timaado bulshada hadii la kala xakameeyo oo bando lagu soo rogo oo la kala xakameeyo meelaha ka jiro meelaha kale la kala xakameeyo fayraska uu yaraanaya laakiin bulshada isdhex marto oo suuqyada la taagan yahay shaaha la wada cabo la islaamayo waxaan aaminsanahay fayraska inuu zaad u sii badanayo qaab ahaan markuu ku dhaca China oo kale markii waa la fahmi waayay dib baa laga fahmay wadamihii dib ka fahmayna dhibaatadooda way yaraatay sideen ugu hortagi karna nafsadeena caabuqa corona marka
يا sidaan uga hortagi karnaa nafsadan caabuqa corona caabuqa corona waxaan uga hortagi karnaa Allah naga hay marka koowaad marka labaad waxaa rabaa bulshada in isdhexgelin taabashada cabitaanka salaanta faraha la dhaqo iyo bini'aadanka meelaha taabtan oo kale sida basaska tareenada diyaaradaha kale marka la raacayo bini'aadanka meelaha taabtan in la taaban qof alla qofkii safar galo soo noqdana waa inuu marka hore asaga isbaaro karantiin uu sameeyo 4 casho ah ugu yaraan kabacdi ayaa bulshada lagu sii daan karaa hadda cudurka laga helana wuxuu u baahan yahay qofka in la tirinkeelo si xadadan loo ilaaliyo ma garatay si aan bulshada lagu sii daan cudurka corona virus waa cudur aan daawo lahayn bini'aadankana ilaahay baa daaweyn kara laakiin runtii daawo hadda ma laha qofka ku dhaco wuxuu yeelan karaa saameyn geeri u dhow marka saameynta geeri u dhow waxaad yeeshaa si aad horta waa la dhimanayaa laakiin waxaad samaysaa si aad cudurkaasi askaga ilaaliso taawashada bini'aadanka iyo faraha inaad dhaqdo is ilaaliso sanka wax ku xidhato aad adiga isdifaacda la rabaa marka aad isdifaacdo ilmaad aad difaacdo ilaahay uu ku difaacaya ma garan Coronavirus. Coronavirus. magacayga waa Muxidiin Mukhtaar waa maxay caabuqa corona caabuqa corona waa cudur oo ilaahay oo aga dhigayo canaan dadka reer galbeedka mise dadka indhayarta su'aasha kale xigta waxa aan ku weydiinayo jirkeena sidee saameyn ugu yeelan kara caabuqa corona caabuqa corona horto annaga Afrikaan ahaan saameyn saas u weyn ma nagu yeelan karo haddaan ahayn dad oo macnaha oo wasaqlayaal ah oo wasaqda ka agdhow su'aasha kale xigta aan ku weydiinayo caabuqa corona adiga ma ka cabsatay ama iskale qaabkee markaas cabsi ahaan ma ka dareensan tahay ما wax cabsi ma ka qabo ilaa nin islaam ahay oo inta badan ba macnaha ku dadaalo dhaqashada gacmaha inta badan diin islaamka oo nafaraysa qofka haduu xanuunsan yahay in uu bulshada gooni uga baxo marka wax cabsi aan ka qabo ma lahan ani ahaana su'aasha kale xigta aan ku weydiinay waxay tahay caabuqa corona maxay dadka reer galbeedka Yurubta ay ugu badan yihiin mar walba ugu dhaco oo lagu soo sheega oo dadka waa Afrikaanta ay ugu yar yihiin inta ma sheegi kartaa horta haddaan ku sheego dadka Afrikaanta waa dad xoogsato waa inta badan waxay quutaan waxyaabaha ka soo baxo dalaga ka soo go'o beeraha dadkan oo reer galbeedka mise dadka cadaanka inta badan waxay ay isticmaalaan ay cunaan raashin u qaataan waxyaabo gacmo ku samaysa oo daawooyin iyo chemicals u badan marka taas ugu badan isleeyahay sababta ay ugu dhamaanayaan cadaanka inkastoo ayna jirto oo canaan uga dhigaya ilaahay oo ayaga macnaha qaladaadka galeen awgood oo lagu canaanayo su'aasha kale ugu dambaysa aan ku weydiinay waxay tahay ma ii sheegi kartaa sida markaas looga hortagi karo ama uga hortagi karo nafsadeena caabuqa corona horta anaga nafsadeena islaam ahaan waaba ka hortagsan tahay caabuqaas inuu na soo gaaro laakiin dadka oo ku dhacdo waxay uga hortagi karaan nafsadooda waxay uga hortagi kartaan mise ay u ilaalin karaan nafsadooda in ay macnaha ay gacmaha inta badan dhaqdaan oo nadaafadda ku dadaalaan hadduu qofka gaal yahay baba gaalkaas ilaahay ugu talagalay inuu ku dhinto cudurka laakiin hadduu islaam yahay sida caadiga shan mar hadduu qofka weysaysto maalinkii waaba intaasaaba ka badanba marka waxaan u sheegaa dadka gaalada ah oo diin islaamka aan haysanin inay kala fogaadaan maadaama ay gaala yihiin iska kala nixiyeen cudurka maadaama ku dhaco kan kale uu jecel inuu ku faafiyo ha kala fogaadaano dadka islaamkana waaba dad mar walba weysanaya cudurka ma soo gaaraya inta badan Coronavirus. 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 waa maxay caabuqa corona caabuqa waa wax yani de waa cudurkaas oo la dhahay waa la kala qaadaa waxa jeclaan lahaa anaga in la kala fogaado la islaamin hade waxa keenayana waa taabashada waa istaabashada waaye de waa ka hadda waxa ugu baaqaya bulshada raaxa gardheera inay kala fogaato yani ninkii qufacayana meel lagu xiro caabuqa corona sideen jirkeena ugu ilaalin karnaa ama qofka dadka ayaga ugu badbaadi karaan waxa looga badbaadi karaa ninka qufacaya in la qabto oo meel gooni la geeyo karantiin la geeyo oo isbitaal baa jira la baaro kii kale la arko oo laga shakisan yahay oo qandha haysa la arkana ayadana in la qaado isbitaalka la geeyo saas looga badbaadi karaa kale aan ku weydiinay waxay tahay dadka Yurubka ama reer galbeedka maxay ugu badan yihiin ugu dhaca mar walba caabuqa corona Afrikaanta ay ugu yar yihiin ayagana ay ugu dhimanayaan waxay ugu badan yihiin waxa waaye nafsiga la kala qaadaya taabashada la kala qaadaya waaye anaga islaam baan nahay waxa waaye ilaahay baana badbaadin kara badbaadada Allah leh laakiin waxa waaye dadaal buu dhahay ilaahay Allah subhanahu wa ta'ala anagana dawaan dadaalina dadaalka aan sameynayna waxa waa inaan kala fogaana oo de istaawashada iyo kala fogaasha baa lagu kala qaadi karin taas lagu kala qaadaya marka inaan kala fogaano waa taxadar nafsaka okay su'aasha ugu dambaysa aan ku weydiinay waxay tahay adiga ahaan ma ka cabsatay caabuqa corona waa dilaa waa laga cabso qof walba waa cabsanaya qof kasta waa cabsanaya
waa dilaa weligiis la arkin dee qofkii nolol iyo geeri mid buu u dhexeeyaa waa sidii shumbiyoodka camal waa daacuunka kala camal waaye waa la kala qaadaa marka waxa waaye tataabashada lagu kala qaadaa qofka la salaamayo waa in la is salaamin nin walba galoofis xirtaa dee taxadar nafsaka dee sidii waxa waaye lagu karantiin lahaa falkeeda waa in la galaa oo anaga isbadbaadin karna Coronavirus. 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 dadka bilaadanka waxay guurayaan meesha cudurka la fersada waa isku taalaa cudurkooda fersada hadda ku dhaca bis waa dilaa cudurka la iska ilaaliyo qofka bilaadanka marka bulshada ku dhex jiro waxa leeyahay bulshada la iska ilaaliyo salaanta badan iyo dhalax joog badan uu diray hadda iska ilaalin bis weeye waa nolol geeri u dhaxaya wax kale su'aasha kale aan ku weydiinay waxay tahay caabuqa corona sidee nafsadana uga hortagi karnaa anaga waxay uga hortagi kartaan badbaadada waxa weeyo in dadka kala dheeraadaan oo kala badan amal misaada markii imaadaan iyo markii meel bulshada hadda kala soo kala meel dhaxdeeyo in salaanta salaamin oo wixii ninka qabo oo la sii wardiyo su'aasha kale aan ku weydiinay waxay tahay caabuqa corona dadka garar galbeedka muxuu ku dhacaa Afrikaanta ay ugu yaryihiin ayaga qolada wuxuu ugu dhacay waxay badiyeen macsiyada badiyeen نعسيد بدين وحب بدين هذه هو بشدة بدين بس تروح جيران يو بدين هذه أهم مكعب ستا كورونا أنا ضدك ما وصل أنا هذا هو يذهب ما وصل أبيه مكعب ستا مركز هذه أنا ضدك واسكو ورد هذا هذا المجال سبب جو حيرر لي ضدك واسكو ورد هذا أوكي Coronavirus. 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 أو كروح أنا كوي دي وام حي أبو كورونا caabuqa corona waa xanuun aad iyo aad u dhib badan oo bulshada dhammaan oo kala reebay guryaha ku kala reebay oo ganacsiga waa istaagay meel waliba isku imaatin ahaa goobihii waxbarashadii kulli waa istaageen hadda unba goobihii daawooyinka unba furan way la kala dhammaan way kala xiran yihiin caabuqa corona jirkee saameyn uu geysan karaa sida saameyn uu geysan karaa jirkaaga caabuqa corona caabuqa corona sida lagu sheegay adeetan laba siyaabood xanuun adeetan mid cunuhu ku dhigaa midni wuxuu galaa laabtu galaa marka inta waxda wali wax kuma hayno laakiin insha Allah ilaahay anaga badbaadiyaan leenahay sidee reer galbeedka ay ugu badnaadeen caabuqa corona oo Afrikaanta meeshan ay ugu yaraadeen ma sheegi kartaa su'aasha والله تاس إلهي باك على ما أنا مشي كرنا حالة لكن إسلام مركز هذا سلشة جايو دنك إسئلال أنت عافمتك إسئلال أنت ماشى في عنا ديكرا دنك أفريكانتا ما كعبسة عابق كورونا هذيك آدي أنا لو عبسة نستلك إسئلال أنت آدي أدو سيب بديي سيدنا وقرتك كرنا مركز عابق كورونا إسئلال أنت نظافة إن إلالنا جعمها آن دخلنا ميل ولي بقى مرينو إن إسكيلالينو إسكيماتك إن إسكيلالينو meel walba dibaato ku iman karto oo saameyn oo caabuq karan oo ku yeelana inaan iska ilaalino taasana u wartay karnaa ay bulshada maxaa sheegaysaa marka caabuq karan ahaan sida ka faansiinayay bulshada waxaan ugu baaqayaa inay iska ilaaliyaan wax walba oo dhibaato keenayo oo caabuq karan oo fidinayo inay ka hortagaan oo ay ka fogaadaan Coronavirus. 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 waxaan ku weydiinayaa su'aasha ugu horeysa waxa weeyaan waa maxay caabuqa corona نيو كورونا ومصيبة رباني واي وإلهي وحو كينا واي وحو الله كينا نوح لغو فرحسين يهواي وانا يعني سي دادك ميلاها كود وداني شيغا يعني اسدها يان وحاواي وحليين وحنون يعني كبير لا يخاذي في دميرتي وحيالها سي شيغا يعني سي نيوز فيد كل شيء لكن أنا إسلام هانا وحنا أمساني إنو يهي حنون الله كينا markaad fiiriso sidee jirkeena saameyn ugu yeelan kara caabuqa corona والله كورونا قفك هدو كله وحالها جيرك قفك بالآدم يعني بروبليم وكينا حق النقص كي وحيالها سو دبعت وكينا له su'aasha kale aan ku weydiinay waxay tahay dadka reer galbeedka maxay ugu badan yihiin oo ugu dhaca caabuqa corona markii la fiiriyo dhankan Afrikaanta ay ugu yar yihiin ayaga نيو waxay leeyihiin badana waxay leeyihiin dadka Afrikaanka yani immune system kooda adag oo yani dadka Amerikaanka yani white people na waxay leeyihiin northeastern xarwa dadka yani galbeedka immune system kooda jilicsan iyo waxa leeyihiin su'aasha kale aan ku weydiinay waxay tahay sidee baan nafsadana uga hortagi karnaa caabuqa corona coronavirus dadka dhaqaatiirta sidii sheegayaan iyo WHO sidii soo saareen yani waxa loo baahan yahay qofka inuu gacmihiisa dhaqo yani saabuun ku dhaqo uusan wajigiisa afkiisa uusan taaban iyo in yani social distance wax la dhaho la isticmaalo oo dadka yani ugu yaraan 1 meter meelaha la kala fogaado
su-aasha kale aan ku weydiina xigta ugu dambeyntii caabuqa corona adiga maxaa cabsi ka qabataan ma ka cabsatay aad u weyn waa balaayo jirto waaye ilaaha naga haya Coronavirus.